أهلا وسهلا سودة هذا دمانتين وحندين هنا قصة طالعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة هذا هو معلن عصبية مقال عصب وحد لا سعودين ساه ولا شهريان وحقوقال وأدوق براتين فرصدها مهم كأه إدوني الصعدة. فرصة ما أنت أنا ذي ودنا وحاجتهاي برنامج اللي يدهضو TED Fellows Program TED TED هذه الهاي ومقاشي TED Talks iyo waxyaabo la mid ah media organization ka TED la yiraahdo oo TED ay macnaheedu tahay ama ay u taagan tahay technology entertainment and design waxay caan ku tahay in ay dadka mufakiriinta ah dadka hal abuurka ah dadka ganacsatada siyaasiyiinta iyo dhammaan dadka kala duwan ee magaca leh in ay ugu yeedho lecture ama khudbad masrax caalami ah oo lagu dhageysto qofkaas waxqabadkiisii waxa uu gaaray iyo heerarka uu soo maray. waxa kale oo qabataa barnaamijkan oo la yiraahdo TED Fellows Program. barnaamijkan sidii TED Talks isaga ma yimaadaan siyaasiyiinta iyo ganacsatada waaweyn waxaase xoogga lagu saaraa in loo yeelo dhalinyarada yaryar ee hal abuurka ah ee cusub ee hadda soo kacaya kuwaasoo ah doers sameeyayaasha dadka wax sameeyay product ama service makers waa sameeyayaasha inventors abuurayaasha hal abuurayaasha curiyayaasha advocates udoodayaasha ama wacyigeliyayaasha filmmakers dadka filimaanta sameeya filimaantaas ama ha noqdaan filimka jilinka ama ha noqdo documentary photographers sawir qaadayaasha musicianska iyo artistiska fanaaniintu laba qaybood way noqon fanaankii farshaxanka ee artista iyo fanaankii heesaya labadaba way noqonayaan scientists saynisyahanada entrepreneurs ganacsatada yaryar NGO heads madaxda NGO-yada ama ururada aan dawliga ahayn iyo human rights activists dadka u dooda ama u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha. dadyogaas kala duwan baa barnaamijkan loogu yeedhaya TED Fellows Program. maxaa looga baahan yahay qofka barnaamijka soo qaybgalaya? an idea will work. waxaa looga baahan yahay fikrad waxtar leh, fikrad si fiican u hirgashay oo wax ku ool ah kaasu in uu buuxiyo application ama codsi uu ku buuxinayo taariikhdiisii shaqo iyo tiisa waxbarasho oo kooban iyo referensiyo ama tixraaciyo meelaha uu ka shaqeeyay ama wax ka bartay. qofkaasu waa inuu 18 jir ka weyn yahay xilliga uu wax codsanayo. Englishka waa inuu si fiican yaqaan, waa muhiim luqadda Ingiriisigu. qofkaas waa inuu ku faraxsan yahay inuu qayb ka noqdo koox xidhmo la shaqeeyo bulsho badan oo daafaha caalamka ka kala timi una leeyahay dhaqan wanaagsan oo dadka kula macaamili karo. qofkaas waa inuu diyaar u yahay inuu barnaamijka oo soconayo 28 May ilaa 4 June 2020 inuu ka qayb galo. muxuu qofku ka faa'iidayaa barnaamijkan? marka aad ka qayb gasho waxaad ka faa'iideysaa inaad qayb ka noqoto dadyo kala duwan oo kala aqoon duwan oo kala hal abuur duwan oo kala shaqo duwan oo ilaa 500 ah oo dhammaantood ah dad dunida wax ku soo kordhiyay. inaad ku xiranto oo barato oo aad aqoon isweydaarsi iyo doodba la wadaagto. inaad hesho barnaamij adiga kobcinaya aqoontaada kobcinaya
oo dhisaya oo tababar ah inaad ka hesho iyaga la talin tusmayn iyo hoga tusaaleyn sidii aad u wadi lahayd u dhisi lahayd ama u kobcin lahayd ama aad dadka kale ugu sheegi lahayd ugu gudbin lahayd xirfadda ama shaqada aad gacanta ku haysay aad barnaamijka ku soo codsatay waxaa kaloo aad heli kartaa TED Talks ama inaad ka hadasho masraxa TED oo aad ka jeediso presentation oo aad waxqabadkaaga aad ugu sheegayso bulshada caalamka in tababar shaqo dhisid ah ama career coaching inaad hesho in lagugu tababaro public relationska iyo warbaahinta ama mediaha ah si buuxda uga qayb qaadato dhammaan barnaamijyada TED Fellows ood ku xidhnaato si fursad aad ugu xidhnaato oo aad kaga faa'iidaysato ama aad heli karto fursado kale oo dunida ka socda waxaad helaysaa invitation ama in lagugu yeero inaad ka qayb gasho kala yidhaahdo TED Monetary Conference oo ka dhacaya gobolka California ee waddanka Maraykanka 20 May ilaa 4 June 2021 sidee dadka lagu kala xoranayaa baad isweydiinaysaa barnaamijka TED waxaa xulaya guddi ka kooban khubaro iyo shaqaalaha TED oo aqoontoodu sarreyso ma jirto xeerar gaara ama qodobo gaara oo ay dadka ku kala xulanayaan kaliya waxay ku kala xulanayaan qof accomplishment-giisa ama xurkiisa iyo sida uu hirgalay ama ganacsigiisa ama fikradiisa iyo sida ay u shaqaysay u hirgashay taas baa muhiim ah oo lagu dooranayaa waana xirfadihaynu hadda soo sheegaynay ee tirada badnaa haddii aad tahay dadka mid ka mid ah photographer, advocate, filmmaker, artist waxyaabaha la midka waxaan kugu boorinayaa inaad codsato barnaamijka waxaan ku rajaynayaa guul si aad mar walba ugu xidhnaato fursadaha muhiimka ah ee kuwan la midka ah iyo kuwo kale oo kasii qaalisan oo ah fursado aqooneed fursado ganacsi fursado tababar fursado dhiirigelin dhammaantooda fadlan ku xidhnow kanalka subscribe gambaleelka furo si notification uu kugu soo dhaco like sar videoga dhiirigelin bay noo tahay adigana hawl weyn kuma aha comment ka bixi ama faalo noogu reeb wixii ra'yigaaga wixii su'aalaad qabto gargare oo gaarsii asxaabta kale waxaa xidhmayaa codsashadiisu 24 Agosto 2020 mahadsan tahay daawade